أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. درسينو maanta wuxuu ka bilaabanayaa aayadda 267 ee suuratul baqara kamid ah. Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu inagu boorinayaa inaan baxsano sadaqo isla markaasna aan ka bixino waxyaabaha ugu fiican ee maalkeena kamid ah oo xalaasha ah iyo waxyaabaha Ilaahay noo soo saaray. infaaqa fi sabilillah ama alla dartii oo wax loo baxsadaa iyo fadliga ka imaanaya iyo sida nafta in loogu tarbiyeeyo arrinkaas loo baahan yahay ay aayaduhu inagu tirtirsiinayaan. Ilaahay wuxuu leeyahay yaa ayyuhalladhiina aamanu kuwii Ilaahay nabi rumeeyo anfiqu bixiya min tayyibaati ma kasabtum wixii aad kasbateen kiisa fiican ee xalaasha ah bixiya wa mimma ki akhrajna aan soo saarnay lakum idinka min al-ardi dhulka wixii aan idinka soo saarnay oo beeraha ahna ayagana wax ka bixiya. intaas markii la sheegay oo Ilaahay uu ina amray inaan bixino waxyaabaha wanaagsan ee maalkeena kamid ah saas waxa loo leeyahay ay tahay Ilaahay wuxuu aqbalaa wixii wanaagsan. inna Allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Ilaahay wuu wanaagsan yahay wax wanaagsan buuna aqbalaa. marka shayga xalaasha ah ee qofka shaqadiisa ah ee uu soo shaqaystay inuu wax ka bixiyo ayaa la rabaa. macnaheedu waxay tahay yani xaaraan hadii uu bixiyo xaaraan Ilaahay waxba kuma falaayo. wuxuu Ilaahay aqbalayaa wax wanaagsan oo xalaal ah. yaa ayyuhalladhiina aamanu ku Ilaahay nabi rumeeyo anfiqu bixiya min tayyibaati wanaaga ama xalaasha ma kasabtum wixii aad shaqaysateen wixii aad kasbateen xalaashiisa kiisa tayyibka ah bixiya wa mimma kiina wax ka bixiya akhrajna aan soo saarnay lakum idinka min al-ardi dhulka wixii aan idinka soo saarnay yani beertan la abuuranayo Ilaahay ayaa fadligiisa inagu siiyay wax yar oo abuura ayaan dhul ku ridnay wixii yaraa ayaa intaas oo qaybood inoo noqday marka Allahii awoodiisa miraha noogu soo saaray yaa wuxuu Ilaahay wixii aan idin soo saaray wax ka bixiya yani zakadii iyo sadaqada dawca intaba bixiya wa mimma akhrajna wixii aan soo saarnay lakum idinka min al-ardi dhulka wala tayammamu ha uqasdina al-khabitha kahun oo minhu maalka kamida tunfiquna idinku oo bixinaysiin. marka aad wax bixinaysaan xoolaha aad haysataan midka xun ha bixinina. tusaalahan haday xoolo nool yihiin marka wax la sadaqaysanayo midka ugu fiican ee qofku ugu jecel yahay hadii laga qaado laga yaabo inuu yacal isxumeeyo oo diintaba uu naco kaas laga qaadi maayo. mid xun oo tacbaan ah oo waxba ku filayna asna laga qaadi maayo. mid dhaxdhaxaad ah ayaa laga qaadayaa. marka dadka si yani bakhayrtinimada naftooda ku jirta iyo xoolo jacaylka naftooda ku jira looga baabi'iyo yaa waxa leeyahay markaad wax sadaqaysanaysaan qaybta aad bixinaysaan ha ka dhigana qaybta xun oo markaas idinku aydan qaadan lahayn. wala tayammamu ha uqasdina al-khabitha kahun oo minhu maalka kamida tunfiquna xalatin kuwa bixinayaan walastum biakhidhihi idinku aan qaadan lahayn kaas hadda aad bixinaysaan illa an tughmidu inaad indhalaabtaan ma ogiye fihi dhaxdiisa wax idinku ba aydan qaadateen oo hadii ruux kale oo idin siiyo alla yaabi lahaydeen oo ruuxani maxaa saan ka wada waxaan xun ee aan waxba tarin muxuu ii siinayaa shaygi adigu basaas aad dhilahayd ruuxan hadda adigu aad siinaysaa miskiinka ah sidaas adigu aad u dhibsatay wax xun in lagu siiyo asnoo dhibsanayaaye wax xun hasiini waa naftaada oo kale ah. marka waxa la yiraahdaa u qasdina kiisa xun oo aad bixinaysaan kaas xun aad bixinaysaan oo walastum biakhidhihi aydan ahayn kuwa qaata illa an tuqmidu fiina inda laabtaan moogi kulli ku qabsatay si aad yeesho ma leh eberka uu ku dhaamaaye bal iska qaado Ilaaha joogay intaan laakiin waxba ma taraysee wax idinkoo sii murmaayo oo hoosta iska hiifaaya aad yani hadii la idin siin la aad qaadan lahaydeen idinkuna ku dayna qofka kale inaad sidaas ka dhigtaan maxaa yeelay qofkaan aan waxba haysanin haddaad wax siinayso Ilaahay waxba uma waayin adigana waxaan Ilaahay uu ku dhiibay fiicnaan aad qofkan ka fiican tahay laguguma dhiibine waa imtixaan lagugu imtixaamayo saad u dhaqmayso la fiirinaayo. qofkan miskiinka ana miskiinimada waxa looga dhigay sabirkiisa isu u dul qaadanayo qaybinta Ilaahay inuu raali ku noqonayo in la fiiriyo marka labada qof baa imtixaamayeen kii wax haysta iyo kii aan waxba haysaninba
marka kii waxaystayow ilaahay wuu ku nicmeeyay oo ilaahay inuu ka dhigay al-yadul ulya gacanta sareysa ayaa khayru min yadi sufla mid hoose ka khayr badan khayriyadaas aad haysato ha iska halaynin ha iska xumaynine markaad wax bixinaysaan shay wanaagsan oo tayiba bixiya mid xun oo idinkuba aydan qaadateen masaakiinta ha siinina haddii aad qaadataan aad ku qaadan lahaydeen idinkoo indhaha laabaayo oo ka xun xaaladaas aad ku qaadan lahaydeen idinkuna xaaladaas oo kale ha abuurin oo qofka kale walaalka asaas ha ku siinin waclamu ogaada anna allaha ilaahay ghaniyun ilaahay inuu gani yahay xamiidun oo ilaahay yani maxmuud ahoo la mahadiyo yani ilaahay markuu leeyahay man dha ladii yuqridu allaha qardan xasanan ilaahay yaa wax amaahinaya ma ah baahi ilaahay markaas uu qabo amaahda oo asaga wax ku falaaye yani ilaahay waa gani waxba kuma falaayo laakiin insaanka waxaa laleeyahay adiga ayay sharaf ku tahay inaad ilaahay oo gani ah aad wax u dhiibato oo daraadii aad wax u bixiso qof wax haysta ayaa wax laga helaaye ilaahay warkaasuu kuu soo celin doonaa wuuna kuu mahad celin doonaa marka ilaahay waclamu ogaada anna allaha ilaahay ghaniyun inuu hodan yahay inuu gani yahay xamiidun alla la mahadiyo inuu yahay ama xamiidun alla mahadiyo addoomihiisa ruuxii wanaagsanaado oo wax sadaqaystaay ilaahaygi maalkan markii horeba u dhiibay ayaa ka mahadinaya oo ka abaalmarinaya oo dhahaya yani waddadii aan kuugu talagalay maadaama aad ku bixisay waad ku mahadsan tahay wa kaana sacyukum mashkuuran shaqadiina waa mid laga mahad celiyo ilahay uu ka mahad celinayaa marka insaankii daciifka ahaa ayaa markuu fiicnaaday oo tawjiiha ilaahay uu qaatay ayuu wuxuu noqonaya qof heer sare ah oo mutaystay ilaahay inuu u mahad celiyo marka ilaahay waa hodan waa xamiid waa maxmuud waa alla la mahadiyo ama waa xamiid asagaaba mahad celiyo oo ruuxii fiicnaada ilaahay wuu u mahad celiyaa maxaa yeelay asaga oo xumaan kara ayuu intuu xumaatadii iska daayay ayuu fiicnada iyo khayrka ayuu doortay ruuxii saas yeelana wuu mahadsan yahay الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء أيضا waxay ka hadlayaan insaanku markuu wax bixi isleeyahay ha ogaado cadow waxaa jira aan ogolayn insaanku inuu wax bixiyo maxaa yeelay insaanka wax bixinta uu bixinaayay waa fiicnaan uu fiicnaanayo oo janno ilaahay uu ku galaayo shaydaan waxaa jira dadka aan jannada u ogolayn oo asagoo naar ay u waajibtay oo raba dadka inuu naarta geliyo si marka insaankan uu uga hor istaago inuu wax sadaqaysto waswaas wuxuu ku ridayaa uu kaga hor joogsanayo wax bixinta qof wax bixinayo marka shaydaankaas cadowga ah in la iska ilaaliyo waswaaskiisana la iska celiyo dhag jalaq aan loo siinin ayuu ilaahay inooga digayaa taas ayuu ilaahay inoo sheegaya ilaahay wuxuu leeyahay ash-shaytaanu shaydaanku yacidukum wuxuu idin yaboohayaa alfaqra faqiirtinimo yani haddaad wax bixisaan shaydaanku wuxuu ku waswaasinaa oo ku leeyahay adiga ma dabaalaa tahay xoolahan maalin walba aad sii wadee dadka aad siinaysid soo kaama dhammaanayaan berri ka maalin markii ay wax la-aan aad noqoto dadkan haddaad wax siinaysa mayna wax ku siin doonaan baad u malaysaa hadda intaad xoola haysato unbay xoolaha kaa dhammaynayaane war xoolahan ha iska dhammaynin xoolahan cesho si aadan faqri aadan u noqonin qofkii marka waswaaskaas u hoggaansamo run intuu u maleeyo yuu bakhayl noqonayo wuxuu leeyahay war xoolaha iga dhammaanayo wax ma sadaqaysanayo inuu wixii ceshto ayuu isku dayayaa marka ceshashadaasi xoolo kuma bataane bixinta ayay xooluhu ku bataan waatuu nabigu sallallahu alayhi wasallam ma naqasat sadaqatun min maal yani sadaqo maal laga bixiyay sadaqadaasi maalka ma yarayso way barakaysaa wama anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu wixii aad yani aad bixisaan ilaahay ayaa bedelkeeda idin siinaya marka shaydaanku laakiin saas ma ogolo waswaas wuxuu kugu ridayaa ah haddaad wax iska bixiso xoolo la-aan filo wax ma heli doontid marka ash-shaydaanu shaydaanku yacidukum wuxuu idin yaboohayaa alfaqra faqiirtinimo ayuu idin yaboohayaa haddii aad wax bixisaan wuxuu idinka dhaadhicinayaa inaad faqiir noqon doontaan waya'murukum wuxuu idin farayaa shaydaanku alfaxshaa'a xumaan ayuu idin farayaa shaydaanku waswaaskiisa wuxuu idinku farayaa xumaan xumaatadaas waxaa lagu fasiray aayaddani inay loola jeedo bakhayltinimada laakiin qur-aanka inta badan alfaxsha hadday kusoo aroorto zinada ayaa lagu fasiraa ilaa meeshaan ma ogiye meeshaan waxaa lagu fasiraa ya'murukum bilfaxshaa ay ya'murukum bilbukhli bakhayltinimo ayuu idin faray maxaa yeele bakhayltinimadu waa foolxumo maal ilaahay uu kuu dhibay oo asaga uu iska leeyahay oo adiga tasarrufkiisa uu gacanta kaa geliyey oo uu kugu imtixaamaayo oo haddana uu ku yidhi wax ka bixi waxna hayso intii yarayd ee ka bixi lagu yidhi haddaad diidid yani qof xun ayaad noqonaysaa shaydaankuna saas inaad noqoto ayuu jecel yahay marka waya'murukum wuxuu idin farayaa shaydaanku bilfaxshaa'i foolxumo oo bakhiiltinimo ah oo inaydan waxba bixinin ayuu idin farayaa wallahu ilaahayna yacidukum wuxuu idin yaboohayaa makfiratan dembi dhaaf oo minhu asaga xaggiisa ka ahaatay iyo wa fadlan dheeri wixii aad bixiseen in ka badan inuu idin siiyo ayuu ilaahay idin ballan qaadayaa marka nafta waxaa ku tartamaya yani khayr iyo shar ayaa isku haysta shaydaan oo waswaas wada oo kule haddaad wax bixisay waad faqiiraysaa
iyo iimaan iyo qalbi wanaagsan oo ilaahay ku xiran oo ilaahayna uu ku leeyahay haddaad wax bixiso sadaqada aad bixisay ayaa dembi lagugu dhaafaya dembi aad horay u gashay oo ilaahay uu ku haysto markuu ku arkay inaad sadaqa baxsanayso oo dadka dhaqaalaynayso dembigii hore ayuu ilaahay kaa tirtirayaa xoolahan kaa baxayna beddelkooda ayuu ku siinayaa habka uu beddelka u siinaayana ama ha ahaato si kaash oo ruuxiiba uu dareemi karo oo maalan wuxuu sadaqaystay 10 kun oo shilin ayuu sadaqaystay isla markii in qof kale uu soo siiyo oo laga yaabo markiiba inuu 10 kale iyo 20 ba uu helo way dhacdaa oo way dhici kartaa markiiba inuu dareemo waxaa kaloo dhici karta inuu kaash markiiba uusan dareemin laakiin yani dhibaato ku dhici lahayd oo maalan balaayooyinkan socda oo qofka haday gaaraan ay dhici karto 10 kun ma aha daaweyntiisu ay 100 kun ay noqoto oo ku soo socotay ayaa laga leexinayaa sadaqadii uu baxsaday daraadeed laana waa ta leeyahay albalaa'u la tukhdi as-sadaqa yani balaayadu kama soo talawdo sadaqadu balaayo xijaab ayay tahay marka qofkii balaayo ku dhici lahayd oo intuu isbitaal galo oo uu xanuun habeenkii la seexan waayo oo jirkiisa u rafaado kharash badan uu galo dhibaatadaas ku dhici lahayd sadaqa uu baxsay hadii looga leexiyo kaash lagu siiyay waxay dhaanta male bal wayba ka sii fiican tahay marka waxa la hubaa qofku wixii uu sadaqaysto ama si toos ha u helo ama si dadban oo wax ku dhici lahaa looga leexiye marna sadaqa baxday sidaas kuma maqno meel cidna ma dhacayso qofkii xoolo ka khasaaray ma aha ilaahayna saas ayuu ballan qaadayaa kalsoonidii arrintaas lagu aamini lahaa ayaa nafta iyo shaydaanku yaqiintaas in la gaarsiiyo sida lagu gaarsiiyo ayaa dhib badan tarbiyo iyo khayr badan oo la isu sheego oo bukhliga la iskala dagaalamo ayaana lagu gaari karaa yaqiintaas ruuxii gaarana waa la hubaa ilaahay ballan qaadkiisu waa run marka wallahu ilaahay yacidukum wuxuu idin ballan qaadaya wuxuu idin yaboohaya haddaad wax sadaqaysataan maghfiratan dembi dhaaf oo minhu xagiisa ka ahaaday dembiga inuu ilaahay idin dhaafo ayuu ilaahay idin yaboohaya iyo wa fadlan dheeri wixii aad bixiseen wax ka dheeri ah oo ka badan inuu ilaahay idin siiyo ayuu ballan qaadaya shaydaanna wuxuu idin ballan qaadaya haddaad wax bixisaan inaad faqayraysaan yaad rumaysan waay marka ma shaydaankaad rumaysan oo si aad u faqirin baad xoolihii cishan mise ilaahay baad rumaysan oo si aad waliba u taajirto ayaad sadaqa baxsan naftaada ayay ku xiran tahay iyo tarbiyadeeda ruuxii marka nafta ka adkaado oo bakhiltimo intuu iska tirtiro xoolo bixin bartaay waxaa la hubaa bedelkeeda oo ka badan inuu helaayo ilaahayna wuxuu yiri waman yuuqa shuxa nafsi fa ulaa'ika humul muflixuun qofkii naftiisa bakhiltinimadeeda laga ilaaliyo qofkaasi wuu liibaanay liibaantaasi waa mid adduunyo iyo mid aakhiraba marka ilaahay ballanqaadkaas ayuu noo bixiyay waa inaan ku kalsoonano marka ballanqaadkaas wallahu ilaahay waasicun alla waasic ayuu ahaaday oo waxa uu dadka siinaayo wax ka dhamaanaya ma ah sadaqadaadu inta ay la eg tahay si kastaba ha u badnaatee iyo inta uu ku sii daraa ilaahay oo ka sii badan ilaahay wuu keeni karaa oo yani wax ilaahay agtiisa ku yar oo intaan way iga go'day in baa ii dhiman la dhahayo ma aha ilaahay waa waasic caliimun oo haddana cilmi badan oo qof walba wuxuu bixiyey ilaahay wuu og yahay oo wax lagu hilmaami oo intaad lacag baxsatay intaas waa la iloobay lagu dhihi ma aha inta aad baxsatay ilaahay wuu og yahay waasacnimadii uu kugu soo gudi lahaana ilaahay waa uu leeyahay ee kalsoonidaas adigu ma heli kartaa oo saas ilaahay uu kalsoonaan kartaa yu'ti alxikmata man yashaa yu'ti ilaahay wuu siin alxikmata xikmada cilmiga naafaca ilaahay wuxuu siin man yashaa ruuxu doono ayuu siin waman yu'ta qofkii la siiyo alxikmata xikmad qofkii la siiyo faqad uutiya waxaa la siiyey khayran kathiiran khayr badan ayaa la siiyey wamaa yadakkaru kuma waansama arrinkaas ilaa ulul albaabi caqliga dadka u saaxiibka ama ogiye marka ilaahay subxaana xikmadda oo diinta ah fahamka diinta ee wanaagsani qof uu jecel yahay ayuu siiyaa adduunyada soo ma aha adduunyadu kuma xirno qofkaani inuu fiican yahay iyo inuu xun yahay ilaahay inuu jecel yahay inuu necab yahay kuma xirno adduunyada ilaahay agtiisa waxba kama aha ruuxii uu doono ayuu siin gaal iyo muslim wuxuu doonay ha ahaadee laakiin diinta iyo xikmadda qof ilaahay uu jecel yahay ayuu siiyaa ina allaha yucdi dunya man yuxibu waman laa yuxib ilaahay adduunya wuxuu siiyaa qof uu jecel yahay iyo qof uusan jeclaynba laakiin diinta walaa yucdi diina ila liman yuxib diintase wuxuu siiyaa qof uu jecel yahay ayuu siiyaa marka qofkii ilaahay diin uu siiyo jacayl ilaahay ayuu ku helaaye ilaahay intuu ka mahadiyo diintaasa kusii dheganaado yu'ti ilaahay wuu siin alxikmata xikmadda xikmaddu waa diinta naafica shayga oo sidii uu ku habboonaa loo tasarrufo ayaa xikmad la yidhaahdaa qof yacni xikmad badan oo diinta si fiican u fahamsan oo yacni wanaagga iyo khayrka ka shaqeeya xikmadda wanaagsan ilaahay wuxuu siiya qofkuu doono yu'ti alxikmata man yashaa waman yu'ta qofkii uu siiyo alxikmata xikma qofkuu siiyo faqad uutiya wuxuu siiyey khayran kathiiran khayr badan ayuu siiyey wamaa yadakkaru kuma waansamo ilaa ulul albaabi caqliga kuwa u saaxiibkaa unbaa ku waansamaa wamaa anfaqtum min nafaqatin
وما أنفقتم وحاد بحسان أو من نفقة وحبحن أو نذرتم أما أتكون نذرتان أو من نذر النذر فإن الله إلهي يعلمه وأجيه إلهي مؤمنين تربية وتربيينايو قلب جوده وسافي جرينايو صدقة أو كتر ترسينايو أي إلهي وحولاه وحلا وحد بحسان أما هبضناضو أما هيراضو وحي النذر أو تكون نذرتان نذرك وحالي هذا قفكو إن أجل هذا إلهيو مراد أيان ليه هدي مراد كاس عن ليه إلهي وعن هلو وحان بلن قاضايا إنان صدقة إنتا سلاك عن بحيو أما الصون إنان صومو أما صلاة إنان تكذو أما قرآن كاس إنان أخريو يعني wax khayra oo ilaahay agtiisa loogu dhawaanayo inuu ruuxu ku raadsado arrin uu rabo inuu gaaro inuu intuusan gaarin ka hor oo sii sheego oo yiraahdo ilaahay arrintaas hadii aan helo waxaan bixinayaa sidaas nadarkaas ayaa la yiraahdaa hadaad marka saas wax ugu nadartaan oo ilaahay wixii uu idin siiyo ama muraadkii Allah idin aad gaartaan waxa la rabaa wixii aad ku nadarteen ama sadaqa haday ahayd ama soon haduu ahaa ama salaad haduu ahaa inaad ka soo baxdid ilaahay dadkaas ugu amaano wuxuu yuufuuna bin nadri nadarka ayay oofiyaan wixii marka nadar intaad gasho oo wixii markaad heshay kadib aad wixii aad oofisid ilaahay wuu ku og yahay way macna hadii aad oofin weydana oo aad tiraado ilaahay waan xanuunsanahay ama ilma iga xanuunsan ama muraad baan leeyahay hadii aan helo waxaan ballan qaadayaa inaan sadaqa baxsado sadaqadaasi ama ha ahaato maxay ahayd sadaqa oo lacag ha ahaato ama raashin la cunaay ha ahaato ama waxay dooni oo yaani qofkan anfacayba ha ahaatee sadaqa wanaagsan ayaan bixinayo qofkii yiraahdo markii arintii uu helo hadii uu hadana ka baxo oo yiraahdo waxay waan helay waxaan bixina male kaasi uu dambaabay maxay yeelay waxaan waajib markii hore ku ahayn yaa intuu isku waajibi ayuu dan waajibkii ka baxay marka wixii sadaqa aad baxsataan ama wixii nadara oo saas oo kale aad ugu nadartaan oo markaad heshaan kadib aad bixisaan ilaahay uu idin og yahay saa ula socdo way macnaha wax meel cilla idin kaga dhacay ma ah wama anfaqtum waxaad bixisaan oo min nafaqatin nafaqa wixii aad bixisaan oo wax bixin oo nadartum ama aad ku nadartaan oo min nadri nadar فإن الله إلهي يعلمه أجيهي صدقات أد بحسان إلهي ويدين أجيهي نذر كاس أد أوفيسين أما أرنتاس أد كقارتين أما أد إلهي كوي ديستين مركي أرنت إني سهلين أد بلنتي أد قادين أد كسر بحدين فإن الله يعلمه إلهي وأجيهي وما للظالمين ظالمين تأمسقنان من أنصار وح أجر جار مهلايان ظالمين توحاكم ده كوا نفط ظلمنا يقدم بقى أبان رجايا أو صدق الإسكوجا إني بحين أم بحنين ظالمين أيه نقنايان عيد والبقى يعني ظلم جيسته هذا يدك وحيا ليسو يعني قردرة يحد جذب إن لا السماء إلهي ما جعله قف كيساس كشقينا إلهي جرب كيس مجلايو من الجولي سنايو وما للظالمين ظالمين تأمسقنان من أنصار عيد وجرجرت مهلايان مركب ظلم إن الإسكيل على عيال رباسي أن لها الأجسمين إن تبدو صدقاتي صدقوين كهدي عاد موجسان فنعم ما هي أي فنعم وحاونا أجسناذي ما أيوة أجسناذي وهي صدقة موجين تاسعة وإن تخفوها هدات قرسان هوس كديبتانا وتؤتوها الفقراء فقراء أفسيسان فهو خير لكم ساسا إذين خير بدن ويكفر عنكم سيئاتكم دنبقين الإلهي وكرافي والله إلهي بما تعملون وحد سمين إنسان خبير اللوج أيها هذه هدنا وهبك الله بحنا صدقة إنسي موقته أوداتكو أي أركايان هرتو هذا لوجو بحيانا ويبنانتهاي إنسي قرسودي يعني سي قفبون كو أجانين هذه إلهي نسوقتين هاس أضح كب حسنا إلهي وأجيها أو إذن ويبنانتهاي كيف فضل بدن يعني فضل بدنان شو هو حيكون حرنتهاي هاد موقف كمركز الصدقة اللوجو بهانيها هدي مثلا دت دبعتيسن أو حافظ الدجن للربائن يعني دت كاس دبعتها وح لقى قبته oo dadkii inta isu imaadaan ama isugu imaadaan masaajidka ama xaafada meel ay isugu tagaan inta isugu tagaan laga wada hadlo yaa dadkaasi dhibaataysan seen wax ugu qabanaa sadaqada marka si dadku ay ugu soo dhiiradaan oo dhiirigelin dadka ay ugu noqoto hortooda in wax laga ballan qaado oo lacag fiican meesha laga ballan qaado oo dadka hoggaanka ummadda oo ah ay ayagu bilaabaan oo qof uu yiraahdo anigu waxaan bixinayaa intaas markay dadku arkaan sida wax loo bixinaayna dadkii kale isxil qaamaan oo midka kale uu yiraahdo anna intaasaan bixin anna inta dhiirigelinta noocaas oo kala oo sadaqa muujinta mowqifkaas markaas la joogay kor u qaaditaankaas ayaa fiican hadii kale la yiraahdo dadku ay dhibaataysan yihiin waxaan u baahanaa inaan wax u qabano ruux walba oo inta aad u geyn karta bal hada gurigooda waa taqaanaay iyo meesha ay joogaan hadii aad saas tiraahdid yani waxa laga yaabaa dadku inayna in badanna yani ayna soo xusuusanin kii wax baan u geyn yiraahdaan in yaran waxba tareen u geeyo laakiin dadku inay marka isla joogaan is dhiirigeliyaan oo tanaafus oo xagga khayrka uu banaan yahay wa fi dalika falyatanafasul mutanafisun wa taagsoontiin sayyidina Umar inuu yiri
maalin ayaan waxaan damcay Abubakar inaan khayrka iyo sadaqada xaggeeda uga hormaro markaas sadaqa hal bixiyo la yiri ayaan xoolihii aan haystay nus kamid ah ayaan soo qaaday markaas Nabiga sallallahu alayhi wasallam u keenay nusna yani waa xoolo aad u badan yani qofkii yani xoolihiisa laba intuu u dhiga qayb bixiyay tusaalaan ka soo qaadin yani haysta mesela $10,000 haysta haduu yiraahdo $5,000 ayaan bixiyay yani xoolo badan ayuu bixiyay waa maalkii nuskiisii way macnaha marka Sayyidina Umar wuxuu bixiyay maalkii uu haystay nuski ayuu bixiyay asagoo markaas Abubakar malaha nus ma bixin doonee qaar ka yar ayuu bixin doonaa Abubakar ayaa yimid markaas wuxuu bixiyay maalkiisii oo dhan ayuu bixiyay markaas Nabi wuxuu ku yiri Abubakarow caruurtaada yaad uga soo tagtay maxaad caruurtaada uga soo tagtay markaas wuxuu yiri Ilaahay iyo rasuulkiisa ayaan uga soo tagay markaas Sayyidina Umar wuxuu yiri maanta kadib waxaan go'aansaday Abubakar inaan khayr kula tartami karin halkaas ayaan isku dhiibay marka ummaddu inay tartankaasi khayrka ah oo haddana ummadda wax caam loogu qabanaayay sadaqadii la muujiyo waa wax aad u wanaagsan oo fadli ay leedahay haddii arintaas ayna jirin oo dadku iska ladan yihiin oo dadka qaar yar oo kamid laga yaabo inay duruuftooda si yani wax uga yihiin oo in wax la sadaqaystay ay tahay oo waxa dadka dhan in la isugu yeeraa meesha ayna oolin qofku inuu tartiibtiisa asagu intuu dadkii waraysto xaafadaha meelaha waxoogaa si wax ka yihiin oo kale asagu si tartiiba qofka intuu ugu yeero oo wax u siiyay taasna waa qarintii oo sadaqada hoos laga dhiibay ajir badan ayay iduna leedahay oo qofkii saas yeelana wuxuu soo galayaa sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli yawma la dhilla illa dhilluhu todobadii loo hooseynayay todobadaas oo waxa kamid ahaa qof sadaqaystay ilaa yani sadaqada suu u qariyay bidixdiisu ayna ka warqabin midigtiisu waxa ay bixinayso marka labadoodaba ama muujinha loo bixiyo dadka lagu dhiirigeliyo ama si qarsoodiyaha loo bixiyo dadka ha lagu anfaco oo masaakiinta si hoos ha loo siiyo labadoodaba way khayr badan yihiin marka intubdu hadaad muujisaan as-sadaqaati sadaqooyinka hadaad muujisaan oo si dadka igu dhiiradaan dadka hortooda aad ku bixisaan fa ni'ma hiya fa ni'ma waxa wanaagsanaaday ma shay hiya ayadoo ay tahay sadaqa muujintu yani shayga la amaanayo ee fiican sadaqa muujintaasi waa wax wanaagsan wa in tukhfuha hadaad qarisaan oo tuutuha al-fuqara aad hoos ka siisaan fa huwa khayrun lakum saasa idin khayr badan arintu markay degan tahay arinta iska caadiga tahay in kor loo bixiyo in hoos loo bixiyo hoosta ayaa ka fiican sababtu maxay tahay kor waxa laga yaabaa in waxoogaa yara istutus ah oo dadku ha ka sheegan ama ha ku arkeen inay qalbiga ka soo gasho laakiin adoo ruuxna una ku jeedin markaad qofkii dan yartaa adigu aad la mubaasharto oo siisidi ikhlaaska kugu jira Ilaahay inuu ajir kaga rabto ayaa meesha soo baxaysa marka xaaladdu degan tahay oo duruufo ayna jirin hoos in loo sadaqaysto oo sir laga dhigo sadaqa ayaa fadli badan markay duruufo jiraan oo dadka in la garab qabtaayo oo dadka la dhiirigeliya ay tahayna hoos in laga dhiibo waxa ka fiican in kor loo dhiibo si dadkii wax fiican loo siiyo oo loo anfaco marka haddii aad hoos u dhiibtaan oo fuqarada asiisaan saasa idin khayr badan ويكفر عنكم من سيئاتكم دنبيذيننا إلهي ويدين دافع أو صدقة الله بحنا يدنبي أيا لغو دافع والله إلهي بما تعملون واحد سمين إنسان خبير وأوجه ليس عليك هداهم ليس معهان عليك كركا نبيو هداهم دد كان هانونين تودا أو قلبك إيمان أدوك لساي حول أدي كركا سارا معها ولكن هسا يشاء الله إله إيا يهدي هانونين من يشاء روحه دونه آيادا وحي كسو دكتي سيدا لغسو وري سعيد بن جبير muslimiinta ayaa waxay ahaayeen kuwa ku sadaqaysta dadka fuqarada ah ee aan muslimka ahayn ee ahlu dhimaha la yiraahdo yani dadka muslimiinta aan ahayn ee muslimka la degan ee laakiin waxba aan haysanin muslimiintu way iska siin jireen way isaga sadaqaysan maxay waa insaan bini aadam oo baahan baahidaasi marka in laga bi'iyay ajir ayaa laga helayaa saasay ku sadaqaysan jireen markay saas ku wadeen ayaa markii dambe waxa batay dadkii muslimiinta ahaa ee dhibaataysnaa fuqaradii muslimiinta ayaa soo badatay يعني كوا ذميين أو مسلم هين أو مجالات بناء كده المدينة ويجران أو فقراء وحبها يسنين كوا مسلمين أو أيقنا وحبها هن ويجران يا كوسو دو المكة كياد وحسين يسع وحد على المكة النبي صلى الله عليه وسلم سما دام مسلمين تن إصابة فقراء وحقوها لان أيها وحكيري لا تتصدقوا إلا على أهل دينكم وحبها السنين إلا دتك اسكو دين تتهين مؤجي مسلمين تبس وحسية كوا ذميين تها اسكت رافع محايا لمسلم معها صار دراد المسلم أيا باهن مسلم كباهنا وحسية كواس مركا عن مسلم كأهيني وحبها سين وحبها كصدقيساننا أيضا سودكتي وأنت سلوجود دي النبي قول يري ليس عليك هداهم هنون أنت يعني أذكر كاجا معهن يعني روحا إن يعني أجره بتد وحي عطسين لهاي يعني محو دين تأسوق جلي واي هوش أصحاب أذكر تعالى أساس أديلي سماعها إسلامكو وإسلام يعني مبادئه سأكملتها يعني قف لبعتي سنهداد أركتد haddii markaas qof kula dagaalsan oo xarbi oo yaani dagaal idin ka dhaxeeyo xoog loo sanahayn oo uu yahay qof aan kugu diin ahayn laakiin miskiin iska oo dib aan kugu hayn oo dhibaataysan
dhibaatadaasi waa in laga fuudeeyo way macna waa laga qaadaya taas waxay ku tusaysaa diinteenu sida ay yani xadaarada ay dhisayso inayna isku xireynin isoo raac markaasaan wax ku siinayaa adigoo aan isoo raacin oo dhibaataysan ayaan wax ku siinayaa la soco way macna qofkii marka asaga raba inuu isgarto yiraahdo meel kale lagu badbaadi adduun iyo aakhir oo diintaan aan ahayn ma jirto asaga laga raba inuu fahmo marka laysa calayka hudaahum korkaaga ma ahaanin hanuunkooda walaakin allah yahdi man yashaa ilaahay baa ciddu uu doono hanuunin ee ha isku xirin macnaha hanuunka iyo wax siinta ha isku xirin iska siiya fuqaradaas oo aan yani diintiina haysanin laakiin waxba aan haysanin wama tunfiqu min khayrin wixii aad bixisaan oo khayr ah fali anfusikum naftiina ayaa iskale yani naftiina umaad ku anfacaysaan yani wixii aad bixiso adaa isu bixiyo way macnaha wama tunfiqu min khayrin wixii aad bixisaan oo khayr ah fali anfusikum wama tunfiquna illa ibtigaa'a wajhi illah وما تنفقون مبحنيسان إلا ابتغاء وجه الله وجه إله إذنكو رادينيسين أياد أبحنيسان معناها واسي وحا لو شيء خبر مبحنيسان ومعناه ذو إياه يعني أبحننا واحد بحنيسان إلا ابتغاء وجه الله إذنكو وجه إلهي كدل باي موغي وما تنفقوا واحد بحسان ومن خير يوفى والذين أوفين إليكم حقنا وأنتم إذنكو لا تظلمون aan idin ka dulminaynin marka sadaqadaasi dadka ugu mudnaa ee la siinayay ayaa waxa la yidhi sadaqadaas waxa iskale oo inay la siiyaa ay tahay lil fuqaraa'i danyarti alladina kuwi uhsiru fi sabilillah jidka ilaahay lagu reebay oo ilaahay dartii meesha u jooga la yastadiicuuna aan awoodin darban safar fil ardi dhulka inay ku galaano danahooda gaarka ay raacdaan ay waxay u xayiran yihiin ay tahay koryeelida diinta isla markaasna waxba haysan kuwaas waa kuwii la dhijir asxaabu sufa kuwaas ayaad siinaysaan kuwaas xaaladooda waxa la yaxsabuhum wuxuu malayn aljaahilu ka aan ka warhaynin aghniyaa kuwa waxaysta min atacaffufi dhowrsanaanta daraadeed xaaladooda hoose qofka aan ogeyn oo muuqaalka karo ka fiiriyay wuxuu u malaynayaa inay xoolo haystaan taarifuhum waxaad ku garan bisiimaahum yani calaamadooda inay dan yar ay yihiin way ka muuqataa oo qof yani duruufi ay ka muuqato gaajaysani wajigiisa ayay ka muuqanaysaa sidaas markii loo fiiriyo waa la fahmayaa laakiin sida ayna waxba dadka u weydiinaynin taajir ayaa loo maleeyay la yasaluuna naasa dadka ma weydiisanayaan ilxaafan ku celcelin waxaana loo siiyo ma dhahayaan wama tunfiquu min khayrin wixaad bixisaan oo khayra fa ina allaha ilaahay bihi asaga caliimun wuu ogyahay aladiina kuwii yunfiquuna bixinayeen amwaalahum xoolahooda billayli habeenkii iyo wanahaari maalintii sirran si qarsoodi iyo wacalaaniyatan si muuqata u bixiya فلهم أجرهم أجرهم أيلين عند ربهم ربهم أكتس يكليهن ولا خوف عليهم عبس كركوض معهن ولا هم يحزنون كوم مرقون ما يسنهانين درسي أنه ما أنت سكوك جاي وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.